السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوماليا دمانتين سيدي عاددينو ahayd sheekadani waa mid kamid ah sheekooyinka la soo diray waxaana ay ka hadlaysaa waxyaabaha aad u fara badan. Sheekada waxa ciwaan looga dhigay cudur qabiil iyo cadaab caashaq. Waa sheeko yar dheer waxaana ay ka hadlaysaa waxyaabo aad u fara badan oo Soomaalida ka dhaxdhaca. Haddaba intaana sheekada guda gelin waxaan jeclahay inaan idin fasiro hal eray oo ku jira sheekada. Eraygaas oo ah soosooy. Waxa laga yaabaa dad badan inay garanayaan, dadka qaarna inaysan hore u maqal. Erayga soosooy waa qofka baabuurku marka uu baxayo oo uu meel dad u qaadayo dadka u sheega ama ugu yeedho oo dhaha baabuurkani halkaas buu baxayaa. Marka eraygaas ayaad ku dhex maqli doontaan sheekada waana bilaabaya. Assalaamu calaykum abaaye, magacaygu waa lama sheegin. waxaan deganahay lama sheegin. waxaan bartay wiil anigoo yar. waxaan ku bartay xilli aan iskuul dhigan jiray Kenya. wuxuu soosooy ka ahaa baska iskuulkeena. anigu wax jacayl ah maanan garanayn waqtigaas. wuu ila ciyaari jiray. waxaan ahaa waqtigaas inan yar oo soo baxaysa. waxaana deganayn gobol ka mid ah dalka Kenya. wuxuu ahaa wiilku wiil 24 jir ah, maasha Allah, ilaahay qurux u dhameeyay. wuxuu baranayay jaamacad laakiin wuxuu ahaa wiil iska danyar ah. marar badan wuxuu isku dayay inuu ii sheegto jacaylkiisa, laakiin haddana wuu igu kalsoonaan waayay. waayo waxaan ahaa 14 jir, qof aad uga da'yar. haddana anigu waan dareemi jiray isagoon ii sheegin. waxaana u arkayay ceeb iyo inuu yahay saqajaan markuu hadal naxariis ah igula hadlo. waxaan u sheegi jiray saaxiibaday, wayna ila caayi jireen, isaguna waxba uma arki jirin. 8 bilood kadib waxaa dhacday in naloo xereeyo layn dibadda ah. waxaana nala dhahay Nairobi imaada. markuu maqlay inaan baxayno wuxuu ii sheegay inuu isoo doonanayo isagoo ila kaftamaya. waa naxay waana ooyay, waayo ceeb ayay ila ahayd waxa uu sheegayo. iskuulkii baan ka soo cararay, laakiin anigaba nafsadayda dareen jacayl ayaa galay. markaan guriga imid aniga oo run u haysta doonashada ayaa waxaan galay hagaajin gurigeena daaradiisa ah, kaasoo ahaa 3 boos. waxaan u sheegay walaashay iga yarayd oona igu caawisay hagaajinta. maalintaas oo dhan waan sugayay. wuxuu ii yiri waxaan soo raacayaa macalinkaaga guriga. galabtii buu yimid, laakiin wiilkii muusan soo gelin gudaha. waxa uu istaagay banaanka hore. markaan waayay waan niyad jabay, waana xumaaday. inkastoo wali aanan dareensanayn inaan jeclahay, macalinkii baa soo galay isaga oo na macasalaameynaya. markuu bixi rabayna waa uu ii wacay, wuxuuna ii sheegay inuu wiilkii igu sugayo banaanka. waan qaboobay, aad baan u naxay. waanu tegay. wuu ila hadli waayay. ilmadii baa soo dhaaftay. anigu waan ku qoslay, waana ka soo cararay, albaabkiina ka xirtay. wiilkii wuu baxay. anigii waxaan dareemay jacayl saa'id ah. maalinkii dambe waan soo safarnay, laakiin isagu muusan aqoon meesha aan u socono. waxaan nimid Nairobi. waxaan ka shalaayay inaan wiilka wanaajinin. waxaan ku fikiri jiray markaad weynaato oo dibadda tagto waad caawin doontaa, xataa hadduu family yeesho, laakiin kuma fikirin inuu isii jeclaan doono. dadku markay hurdaan waxaan fadhiisan jiray dabaqa kore anigoo aan dareemaynin dabaysha dhacaysa. waxaan helay mobile markii iigu horeysay ee la isoo gaday. waxaan la hadlay saaxiibadayda aan iskuulka ahayn. waxaan weydiiyay inuu wali meeshii joogo. waxaan la hadlay macalinkii, wuxuuna ii sheegay inuu wiilkii wax badan i raadinayay, haddana uu Nairobi shaqo u doontay, uuna saa'id ii jecel yahay. wuxuu iga codsaday inuu siiyo lambarkayga. waan ka ogolaaday. habeenkii buu isoo wacay wiilkii anigoo aan weligay nin la hadlin. waan gariiray markaan codkiisa maqlay. waalidkayga iima ogola inaan nin la hadlo. waxaan kula hadli jiray musqusha. wax badan anagoo wada socon baa waalidkaygu ogaadeen inaan nin la hadlo, haddana uu yahay wiilkii soosooyga ahaa. waalidka aad bay u naxeen. waxaa layga qaaday moobilkii. waxaan kala hadlay moobilka saaxiibaday, waana u sheegay wixii i qabsaday. wuxuu ii soo iibiyey moobil, wuuna ii soo dhiibay. waxaan u sheegtay walaashay. waxaana dhacday inaan maalin istagaalnay. waxayna u sheegtay waalidkay. ma aynan filayn. waxayna go'aansadeen inay iga reebaan iskuulka. waxaan lahaa
lahaa asxaab fara badan wuxuu iigu soo dhiibay mobile kale galabkii bay booqasho iigu imaan jireen wayna ii keenaan haddana waxaa dhacday in mar kale laygu arko waayo waxaan ahaa qof aan caqli buuxa lahayn waxaa dhacday in aad la ii garaaco dadka xaafadda dhan imaqlaan laygu sheekaysto naag walba oo adeeg doonata marka adeega la ii diro oo ay soo laabato waxay u imaan jireen waalidkayga ayaga oo sheeko ka dhiganaya waxay dhihi jireen gabadhaadii waddadaas bay sii socotay waddadii aan maray maahee mid kale ayay tilmaami jireen ayagoo raba inay sheeko iga samaystaan waxayna waalidkayga kula talin jireen in timaha layga jaro oo lay katiinadeeyo waayo dadka baloodkaas degan oo dhan waxaan ahayn isku cid waxay dhihi jireen nin qabiilkaasa intay guursan lahayd duq hebel ha lagu daro waalidkaygu way i dhibsadeen hadalhayntaydu way badatay ilaa heer musqusha haddaan 2 daqiiqo ku jiro laygu soo garaaco dadka deriska magacyo kala duwan ay ku shaactiraystaan bay iigu yeeri jireen waan dhibsaday wiilkii warkiisii waan waayay aniga dhan wax waalan baan noqday waxaan isku dayay inaan dabaqa iska tuuro waxaa dhacday mar kale inuu haddana mobile simi card iyo card fara badan ii soo dhiibo mobilkii waxaa laygu soo dhiibay shaqaale wayna ii keentay laakiin nasiib xumo wax badan maanan wadan waxaa i sheegtay cunug aad u yar oo aanan ka filanayn waxaa la i weydiiyey meesha uu iga soo galay mobilka waana sheegay shaqaaladii waa la buriyey walaalahayna waxaa la amray inay waardiye iga noqdaan oo qofkii mobil igu arkaa kow igaga siiyo waxaa waardiye la iiga dhigay waajmaanka guriga waxaana lagu siin jiray lacag inaanan albaabka ka degin xataa markay maamadu suuqa aadayso guriga iguma aamini jirin waddada markaan isla socono waxaa la igu tarbiyeeyay inaan waalidka laga hormarin waxayna ahayd caadadayda inaan ka dambeeyo laakiin iyadu waxay u aragtay inaan ka dhuumanayo waxay isku xiri jirtay gacanteeda iyo tayda si aanan uga dhuuman weligeen aniga iyo isaga sheekadeenna ma soo dhexgelin inaan isla dhuumanno weligeyna lama kulmin sidaan saaxiib u noqonay waayo anigu ma ahayn mid banaanada aada badanaa waxaana ka cabsan jiray waalidkay si xad dhaaf ah laakiin anigu go'aankayga marna ma bedelin waayo waxaasoo dhan xanuun uma arag oo dareen kala i wada waxaa dhacday in laynkii ii soo baxo waxaa la dhahay tan haddii dibad la geeyo waa eber dib baa Soomaaliya laygu celiyay waxaan aaday Soomaaliya waalidkayguna wuxuu ku fakiray in ay sheekadaasi dhamaatay ninkaasina uusan iimaan karin laakiin waan xiriiriyay waana u sheegay wax walba wuxuu ii sheegay inuu Soomaaliya imaanayo inkastuusan qof bini aadam ah oo aan aniga ahayn uusan ka aqoonin oo uu daraaday u imaanayo isoo doonanayo shaqana ka raadsanayo 2013 waxaa dib la iigu soo celiyay Kenya line familiga dhan u soo baxay darteed wiilkii waan wada soconay laakiin markaas waqti badan baa ka lumay waayo wuxuu ahaa qof weyn waxaan ka codsaday inuu guursado haddaan sharci yeeshana aanu imaado wuuna iga ogolaaday waxaan hore u aqaanay familkiisa uu hal ii baray oo aan isku fiicnayn markaan wadankan imid waqti walba waan wada hadli jirnay xataa ilma adeeradiis iyaga oo ii haysta inaan xaaskiisa ahay waxaan u qalqaaliyay gabar ina adeertiis ah oo garoob 2 cunug wadata ah way iga ogolaatay wayna isguursadeen anigu aad baan u masayray laakiin haddana jacayl baan u qabay oo i celinayay gabadhii waxay bilowday inay ii faanto inay mar walba iiga sheekayso wuxuu u qabtay laakiin anigu waan ku faraxsanaa inuu jacaylkayga helo ruux daryeela haddana waxay soo adeegsatay walaalaheed si ay iiga masayrsiiyaan laakiin kama xumaan waxa dhacday inay iyadu afcad igu tiri muslim haddaad tahay ii nabadgeli ninkayga oo ii calaacashay waxaan dhahay okay dadkiisa badankoodu waxay bilaabeen inay tashwiish ugu furaan waxaan la hadlay wiilkii waana u sheegay wixii jiray waxaana dhahay in nabadgeli waayo waxa tahay qof reer leh wiilkii xumaantiisa igu badatay waana u gooyay aniga oo wali aad u jecel ayaan kadib waxa ila soo hadashay xaaskiisii iyadoo ay dhahday wiilkii wuu dhintay waan malaysan waayay waxaana qaaday asay isagoon iqabin iyadoon qofna ila ogeyn naxdin saa'ida naftayda dhan waan nacay waxaan ku
ku ducaysan jiray inaan dhinto 2015 waxaan Facebook isku aragnay walaashiis ka yar waxayna ii sheegtay inuu wiilkii waashay kana tagay cidii uuna nool yahay adduunka ila gidoomay waxaan ku hadlo baan garan waayay bilooyin kadib wuu caafimaaday anigu sidii wax waalan camal baan sawiradiisa la sheekaysan jiray passwordka Facebookiisa baan hayay inta kayga message iskaga diro baan haddana kiisa inta galo isla anigii iskaga jawaabi jiray mar baan ishelnay isla hadalnay wuxuuna iga codsaday in xiriirkeeni uu dib u soo celiyo inkastoo rajo guur aanan ka lahayn oo aanan kale xataa diyaar u ahayn haddana waan ogolaaday haddana mar kale waxa ogaaday waalidkayga aabahay wuxuu igu habaaray haddaan guursado wiilkaas in uu Allah waxaan dadna ahayn dugaagna ahayn kala siiyo waxa dhacday inay xaaskiisu isixirto aniga oo ilaa heer matagaygu uu noqdo wadatin doontayda gudaheeda aan ka dareemo inay tin isku xirtay waxaan arki jiray wax fool xun oo aanay dadka ila jooga arag laakiin ma aanan ogeyn inuu sixir yahay waxaasi aad baan u xanuunsaday mar dhaweyd sanadkan bilowgiisii baa haddana gabadhii isoo wacday waxayna i tiri aniga ku sixray haddaad rabto inaad caafimaado ninkayga ii daa walaalkay oo aan saaxiibanahay baan u sheegay isna ayeeyo ayuu u sheegay waa lay quraan saaray la ii duceeyay dambe ulamaan hadlin walaalihiis way ila soo hadlaan maxaa u goysay naag layskuma haleeyo hadday diba tagto ayay i dhahaan alxamdulillah hadda waan caafimaad qabaa mahadsanid walaashay assalaamu calaykum assalaamu calaykum ee la isoo gaday waxaan la hadlay saaxiibadayda aan iskuulka ahayn waxaan weydiiyay inuu wali meeshii joogo waxaan la hadlay macallinkii wuxuuna ii sheegay inuu wiilkii wax badan i raadinayay haddana uu Nairobi shaqo u doontay uuna saa'id ii jecel yahay wuxuu iga codsaday inuu siiyo lambarkayga waan ka ogolaaday habeenkii buu isoo wacay wiilkii anigoo aan weligay nin la hadlin waan gariiray markaan codkiisa maqlay waalidkayga iima ogola inaan nin la hadlo waxaan kula hadli jiray musqusha wax badan anagoo wada socon baa waalidkaygu ogaadeen inaan nin la hadlo haddana uu yahay wiilkii soo sooyga ahaa waalidka aad bay u naxeen waxaa layga qaaday moobilkii waxaan kala hadlay moobilka saaxiibaday waana u sheegay wixii i qabsaday wuxuu ii soo iibiyay moobil wuuna ii soo dhiibay waxaan u sheegtay walaashay waxaana dhacday inaan maalin istagaalnay waxayna u sheegtay waalidkay ma aynan filayn waxayna go'aansadeen inay iga reebaan iskuulka waxaan lahaa asxaab fara badan wuxuu iigu soo dhiibay moobil kale galabkii bay booqasho iigu imaan jireen wayna ii keenaan haddana waxaa dhacday in mar kale laygu arko waayo waxaan ahaa qof aan caqli buuxa lahayn waxaa dhacday in aad la ii garaaco dadka xaafadda dhan i maqlaan laygu sheekaysto naag walba oo adeeg doonata marka adeega la ii diro oo ay soo laabato waxay u imaan jireen waalidkayga ayaga oo sheeko ka dhiganaya waxay dhihi jireen gabadhaadii wadadaas bay sii socotay wadadii aan maray maahe mid kale ayay tilmaami jireen ayagoo raba inay sheeko iga samaystaan waxayna waalidkayga kula talin jireen in timaha layga jaro oo lay katiinadeeyo waayo dadka baloodkaas degan oo waxaa la dhahay tan haddii dibad la geeyo waa eber dib baa Soomaaliya laygu celiyay waxaan aaday Soomaaliya waalidkayguna wuxuu ku fakeray in ay sheekadaasi dhamaatay ninkaasina uusan imaan karin laakiin waan xiriiriyay waana u sheegay wax walba wuxuu ii sheegay inuu Soomaaliya imaanayo inkastuusan qof bini aadam ah oo aan aniga ahayn uusan ka aqoonin oo uu daraaday u imaanayo isoo doonanayo shaqana ka raadsanayo 2013 waxaa dib la iigu soo celiyay Kenya line family-ga dhan u soo baxay darteed wiilkii waan wada soconay laakiin markaas waqti badan baa ka lumay waayo wuxuu ahaa qof weyn waxaan ka codsaday inuu guursado haddaan sharci yeeshana aan u imaado wuuna iga ogolaaday waxaan hore u aqaanay familkiisa uu hal ii baray oo aan isku fiicnayn markaan wadankan imid waqti walba waan wada hadli jirnay xataa ilma adeeradiis iyaga oo ii haysta inaan xaaskiisa ahay waxaan u qalqaaliyay gabar ina adeertiis ah oo garoob 2 cunug wadata ah way iga ogolaatay wayna isguursadeen anigu aad baan u masayray laakiin haddana
jacayl baan u qabay oo i celinayay. Gabadhii waxay bilowday inay ii faanto inay mar walba iiga sheekayso wuxuu u qabtay, laakiin anigu waan ku faraxsanaa inuu jacaylkayga helo ruux daryeela. Haddana waxay soo adeegsatay walaalaheed si ay iiga masayrsiiyaan, laakiin kama xumaan. Waxaa dhacday inay iyadu afcad igu tidhi, Muslim haddaad tahay ii nabadgeli ninkayga, oo ii calaacashay. Waxaan dhahay okay. Dadkiisa badankoodu waxay bilaabeen inay tashwiish ugu furaan. Waxaan la hadlay wiilkii mu arki jirin. 8 bilood kadib waxaa dhacday in naloo xereeyo layn dibadda ah, waxaana nala dhahay Nairobi imaada. Markuu maqlay inaan baxayno wuxuu ii sheegay inuu isoo doonanayo isaga oo ila kaftamaya. Waan naxay waana ooyay waayo ceeb ayay ila ahayd waxa uu sheegayo. Iskuulkii baan ka soo cararay, laakiin anigaba nafsadayda dareen jacayl ayaa galay markaan guriga imid. Aniga oo run u haysta doonashada ayaa waxaan galay hagaajin gurigeena daaradiisa ah, kaasoo ahaa 3 boos. Waxaan u sheegay walaashay iga yarayd oona igu caawisay hagaajinta. Maalintaas oo dhan waan sugayay. Wuxuu ii yiri waxaan soo raacayaa macalinkaaga guriga. Galabtii buu yimid, laakiin wiilkii muusan soo gelin gudaha. Waxa uu istaagay banaanka hore. Markaan waayay waan niyad jabay waana xumaaday. Inkastoo wali aanan dareensanayn inaan jeclahay, macalinkii baa soo galay isaga oo na macasalaameynaya. Markuu bixi rabayna waa uu ii wacay, wuxuuna ii sheegay inuu wiilkii igu sugayo banaanka. Waan qaboobay, aad baan u naxay. waanu tegay wuu ila hadli waayay ilmadii baa soo dhaaftay anigu waan ku qoslay waana ka soo cararay albaabkiina ka xirtay wiilkii wuu baxay anigii waxaan dareemay jacayl saa'ida maalinkii dambe waan soo safarnay laakiin isagu muusan aqoon meesha aan u socono waxaan nimid Nairobi waxaan ka shalaayay inaan wiilka wanaajinin waxaan ku fikiri jiray markaad weynaato oo dibadda tagto waad caawin doontaa xataa hadduu family yeesho laakiin kuma fikirin inuu isii jeclaan doono dadku markay hurdaan waxaan fadhiisan jiray dabaqa kore anigoo aan dareemaynin dabaysha dhacaysa waxaan helay mobile markii iigu horreeyay dhan waxaan ahayn isku cid waxay dhihi jireen nin qabiilkaasa intay guursan lahayd duq hebel ha lagu daro waalidkaygu way i dhibsadeen hadalhayntaydu way badatay ilaa heer musqusha haddaan 2 daqiiqo ku jiro la igu soo garaaco dadka deriska magacyo kala duwan ay ku shaactiraystaan bay iigu yeeri jireen waan dhibsaday wiilkii warkiisii waan waayay aniga dhan wax waalan baan noqday waxaan isku dayay inaan dabaqa iska tuuro waxa dhacday mar kale inuu haddana mobile sim card iyo card fara badan ii soo dhiibo mobilkii waxa la igu soo dhiibay shaqaale wayna ii keentay laakiin nasiib xumo wax badan maanan wadan waxa ay sheegtay cunug aad u yar oo aanan ka filanayn waxa la i weydiiyay meesha uu iga soo galay mobilka waana sheegay shaqaaladii waa la buriyay walaalahayna waxa la amray inay waardiye iga noqdaan oo qofkii mobil igu arka kow igaga siiyo waxa waardiye la iga dhigay watchmanka guriga waxaana lagu siin jiray lacag inaanan albaabka ka degin xataa markay maamadu suuqa aadayso guriga iguma aamini jirin wadada markaan isla socono waxa la igu tarbiyeeyay inaan waalidka laga hormarin waxayna ahayd caadadeyda inaan ka dambeeyo laakiin iyadu waxay u aragtay inaan ka dhuumanayo waxay isku xiri jirtay gacanteeda iyo tayda si aanan uga dhuuman waligeen aniga iyo isaga sheekadeena ma soo dhexgelin inaan isla dhuumano waligeena lama kulmin sidaan saaxiib u noqonay waayo anigu ma ahayn mid banaanada aada badana waxaana ka cabsan jiray waalidkay si xad dhaaf ah laakiin anigu go'aankayga marna ma bedelin waayo waxa soo dhan xanuun uma arag oo dareen kala i wada waxa dhacday in laynkii ii soo baxo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا دمانتين سيدي عاددينو ahayd sheekadani waa mid kamid ah sheekooyinka la soo diray waxaana ay ka hadlaysaa waxyaabaha aad u fara badan sheekada waxa ciwaan looga dhigay cudur qabiil iyo cadaab caashaq waa sheeko yara dheer
waxaana ay ka hadlaysaa waxyaabo aad u fara badan oo Soomaalida ka dhexdhaca haddaba intaana sheekada guda gelin waxaan jeclahay inaan idin fasiro hal eray oo ku jira sheekada eraygaas oo ah soosooy waxa laga yaabaa dad badan inay garanayaan dadka qaarna inaysan hore u maqal erayga soosooy waa qofka baabuurku marka uu baxayo oo uu meel dad u qaadayo dadka u sheega ama ugu yeedho oo dhaha baabuurkani halkaas buu baxayaa marka eraygaas ayaad ku dhex maqli doontaan sheekada waana bilaabayaa assalaamu calaykum abaaye magacaygu waa lama sheegin waxaan deganahay lama sheegin waxaan bartay wiil anigoo yar waxaan ku bartay xilli aan iskuul dhigan jiray Kenya wuxuu soosooy ka ahaa baska iskuulkeena anigu wax jacayl ah maanan garanayn waqtigaas wuu ila ciyaari jiray waxaan ahaa waqtigaas inan yar oo soo baxaysa waxaana deganayn gobol ka mid ah dalka Kenya wuxuu ahaa wiilku wiil 24 jir ah maasha Allah ilaahay qurux u dhameeyay wuxuu baranayay jaamacad laakiin wuxuu ahaa wiil iska danyar ah marar badan wuxuu isku dayay inuu ii sheegto jacaylkiisa laakiin haddana wuu igu kalsoonaan waayay waayo waxaan ahaa 14 jir qof aad uga da'yar haddana anigu waan dareemi jiray isagoon ii sheegin waxaana u arkayay ceeb iyo inuu yahay saqajaan markuu hadal naxariis ah igula hadlo waxaan u sheegi jiray saaxiibaday wayna ila caayi jireen isaguna waxba